wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa habeennimadii Arbacada ay soo galeysay ee 8 Oktoobar waxa ay ku dhawaaqday guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug. Guddigan oo ka kooban 13 xubnood ayaa wasaaraddu ay sheegtay in guddigan uu u xil saaran yahay fulinta habraacyada iyo shuruudaha lagu saleeyay xulista hogaamiye dhaqameedyada rasmiga ah iyo xildhibaanada golaha wakiilada. wasaaraddu waxay go'aamisay qodobadan soo socda. kow, dhisidda guddi farsamo. in la dhiso guddi farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka Galmudug oo ay ka qayb galaan dhammaan beelaha wadadega Galmudug. xarunta maamul dhisidda waxay noqonaysaa magaalo madaxda dowlad goboleedka Dhuusamareeb. labo, tirada xubnaha guddiga iyo guddoonka. guddigu wuxuu ka kooban yahay 13 xubnood oo ka kala socda beelaha degan Galmudug. guddigu waxay iska dhex dooranayaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen. hawsha guddigu waxay noqonaysaa mas'uuliyad wadareed. qodobka saddexaad, magacyada xubnaha guddiga. kow, Maxamed Cumar Warsame Afrax. labo, Cabdulqaadir Nuur Araale. saddex, Axmed Maxamed Caafi. afar, Cabdirasaaq Kaahiye Yuusuf. shan, Cumar Maxamuud Cabdi. lix, Xuseen Cabdulle Xasan. toddoba, Maxamed Daahir Faarax. sideed, Cabdinaasir Geele Cilmi. sagaal, Xaliimo Cabdi Cali. toban, Maxamed Maxamuud Cali. 11, Cabdirasaaq Aadan Warsame. 12, Abshir Cabdiraxmaan Maxamed. 13, Cabdirashiid Cali Salaad. qodobka afaraad, guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka Galmudug waxa uu u xil saaran yahay fulinta habraacyada iyo shuruudaha lagu saleeyay xulista hogaamiye dhaqameedyada rasmiga ah iyo xildhibaanada golaha wakiilada. ku tababarista hogaamiye dhaqameedyada waajibaadkooda iyo qaab xulidda xildhibaanada. maareynta iyo xalinta khilaafaadka ka dhex dhasha odayaasha dhaqanka. ansixinta liiska xildhibaanada iyo xaqiijinta waafaqsanaantooda habraacyada iyo shuruudaha soo xulitaanka xildhibaanada. iyadoo la xaqiijinayo in lagu wada dhan yahay si cadaalad ahna loo soo xulay. qodobka shanaad, guddiga waxaa caawinaya xoghayn ka wakiil ah wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo la shaqayn doonta guddiga farsamada ee dhisidda dowlad goboleedka Galmudug. qodobka lixaad, waajibaadka shaqo ee guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka Galmudug waxaa lagu qeexayaa lifaaq gaar ah oo lala wadaagi doono guddiga farsamada. dhinaca kale war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa waxa lagu soo dhaweeyay magacaabista guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug kuwaasi oo ka shaqayn doona dhismaha Galmudug mideysan oo loo dhan yahay. sidoo kale madaxweyne Xaaf ayaa sheegay in dhismaha guddiga ay maamul ahaan kala qayb qaateen wasaaradda isla markaana ay kala sii shaqayn doonaan howlaha harsan inta maamul dhameystiran oo loo dhan yahay looga dhisayo Galmudug. ugu dambeyntii Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa dhammaan shacabka reer Galmudug ugu baaqay in ay ka qayb noqdaan dhameystirka Galmudug dhameys ah. Shukri Cumar Yuusuf, Telefishinka Codka Bariga Afrika, Muqdisho.